magacayga waa aadan maxamed ibraahim oo la ii yaqaano aadan oor. caawa waxaan bixiyey su'aal barnaamij weydiinaya ama aan warbixin aan ka bixinayay nolosha Sweden nololeedkayga aniga taariikhdayda. waxaa warayskaas ila yeeshay saabir cilmi oo mas-uulka ah ama barnaamijkaas wado Swedish Friendship Media Swedish Media oo saabir cilmi oo hogaaminaya ayaan waxaan siiyey waraysi oo ku saabsan taariikh nololeedkayga iyo dhaqdhaqaaqa ay barnaamijyada aan ka fuliyey Soomaaliya iyo Sweden. sababtoo ah waxaan u arkaynay luqadda inay tahay furaha oo meel walba ay tahay. haddii qofka luqadda oo barto waxaa fududaanayso shaqada, fahamka xataa waxyaalaha dadkan caddaanka ah ee luqadaha ay ku hadlayaan ujeedadooda inta daraaddeeda uga dhacay marna fasalka 8aad ku dhacay kubad le macnaha imtixaanka ka soo qayb galay la dhahayaan kubaddaas aan u go'doono, laakiin waa hobbigayga oo ah kubadda. laakiin asxaabaa jirta oo igu dhiirigelisay inaan kubadda aan xoojiyo. waxaa ka mid ahay macallinkii igu horreeyey markaas cabdikuus oo dhintan oo nahay